dugsiga marka ugu horeysa amba maamulka dugsiyada al-irshaad waan u mahadnaqayaa tababarka ay macallimiinta u qabteen oo ah siyaasadeennii waxbarashada macallimiinta waqtiga iskuuladu fasax yihiin in aqoontooda la kobciyo oo Allahumma salli ala Muhammad waqtiyadii mashquulka wixii aanu waqtigu u saamaxayn waqtiyada fasaxa looga faa'iideeyo sallallahu socotaan xukuumadda amba wasaaradda waxbarashada tiirarka ku tayeenayso waxbarashadeena waxa ugu muhiimsan amba qaybaha ugu muhiimsan tiirarka ugu muhiimsan kamida macallinka amba ha noqdo macallin dugsi gaar loo leeyahay wax ka dhiga amba dugsi dawliya wax ka dhiga imika macallimiin ilaa dhowr boqol ayaa ku xareysan kulliyadda tababarka macallimiinta oo ka yimid dugsiyada dawladda mustaqbalkana insha Allah ta'ala kulliyadda marka capacity-geegu amba intay qaadaysaadee au noqdo in wada qaadi karta dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladaba idina waa ka qayb galasaan shuruuduhum baa kala duwanaanaya oo qofka macallinka dugsiyada dawladda wax ka dhiga iyo ka dugsiyada gaarka loo leeyahay wax ka dhiga kulli way kala shuruud duwanaanayaan laakiin haddana taynu ka simanahay waxa weeye manhajka aynu wada dhigano manhajka qaranka sidii loo fulin lahaa ardaydana loo bari lahaa macallinku waxa loo baahan yahay Allahumma salli ala Muhammad inuu buuxiyo shuruudaha xeerka uu dhigayo maxay xeerka waxbarashada qaranka qodobada 29 ilaa 96 kuwaas oo sheegaya shuruudaha looga baahan yahay macallinka iyo waajibaadka macallinka saaranba shuruudo gaar ah looga baahan yahay macallinka dugsiga sare dhiga shuruudana gaar ah looga baahan yahay macallinka dugsi hoose dhexe dhiga hadday tahay aqoonta levelka amba heerka aqooneed iyo hadday tahay tababarka gaarkii looga baahan yahay marka waxaynu ku fulinayna xeerarkeena marka inoo dejisan waxa waajiba dugsiyada gaarka loo leeyahay in ay eegaan macallimiintu inay leeyihiin aqoontii Allahumma salli ala Muhammad xeerku dhigaya oo xeerku wuxuu dhigayaa tusaale ahaan macallinka dugsi sare dhigaya waa inuu heer jaamacadeed aqoontiisu tahay si gaarana maxay tababar waxbarashada amba education-kana ay u dheer tahay Allahumma salli ala Muhammad marka dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaan ku dhiirigelinayaa oo ku boorinayaa inay macallimiinta tababar u qabtaan macallimiinta qaadanayaana macallimiin aqoontii loo baahnaa leh heerkii waxbarasho loo baahnaa tababar dheeraadiina u dheeryahay okay haddaba tababarka macallinka looga baahan yahay tababar أو مر قاطع معها عم بالله بقاطع وسيد إنه لسه عنه وحبرشة وحوي ويسعتها وكل بقى وحبا كوسو كرده حبوبك وحلودي جي هرمر بالجارية مركزي أرمها معلنك أو لسه عده وحلا جماعة ما نتوبر كان ما أنت لقبتوه كله هل كان ما نكوسو حرنه توبر كاسو كليني دكسيد وقبتان دكسيد على الشأن أرنكا ونكوب كوهم بلييننا إن جرتين in macallimiintu ay baahidaasi jirto oo markasta kor loo qaado micnaheedu maaha adigu aqoon ma leeyahay laakiin micnuhu waxa weeye isbedelada imanaya isbedeladana in la jaan qaado ayaa muhiim fariinta kale oo insha Allah ta'ala sanad dugsiyeedka cusub marka la galo dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaan ka codsanaynaa ardayda u qaadanayaan dugsiga sare inuu noqdo arday imtixaankii sideedaadkii ka soo gudbay oo shahaadadiisii sita jaamacadahana saasoo kale ardayga qaadanayaan fresh maxay sanad dugsiyeedka cusub galaya inuu noqdo arday dugsigii sare soo galay oo shahaadadiisii sita waa cawaaqib amba maxay penalties ayaa ka dhalanaya dugsiga qaata arday aan imtixaankii soo marin aydka amba fasalka sideedaad oo shahaadadiisii sidan jaamacadahana waxa ka dhalanaya ciqaab ka dhalanaysa hadii ay fariisiyaan galaasyadooda arday aan imtixaankii secondary-ga soo marin oo shahaadadiisii sidan cawaaqibkaasina waa cawaaqibka amba maxay ahayd penalties-ka uu dhigayo xeerkeena waxbarashadu wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxay ka mas'uul tahay waxbarashada qaranka oo dhan mid gaar loo leeyahay iyo mid maxay dawliyaba waxaynu doonaynaa dadkeenu soo saaranaa inay noqono dad tayo leh tartanka iskuulada ka dhaxeeyana inuu noqdo tartan ku salaysan tayo dhameystiran waxaan uga jeedaa
in aanu iskuulku ku tartamin maxay sample dhowr qof laakiin uu ku tartamo celceliska ardaydiisa maxay say performance-ga amba ay u gutaan waxbarashada oo markaad haysato Allahumma salli ala Muhammad arday fara badan oo waxbarashadii ka keenay imtixaankiisii dhibco wanaagsan markaas uu iskuulku wanaagsan yahay laakiin in yar oo sidii fardaha meel lagu xareeyay iskuulka kama turjumi karto horumarkiisa iskuulka horumarkiisu waxa ka turjumi kara marka la eego celcelis ahaan iskuulkaas ardaydiisu maxay tahay haddii iskuulku dhowr 20 eeya oo dhibco wanaagsan oo helo laakiin inta kalena ay dhulka wada taalo taas halka khiyaana ku jirta waa macallimiin baa tiino wad garanaysan statistics-ki average-ka loo soo saaro oo waxa weeye Allahumma salli ala Muhammad dispersion-ka amba kala tagsanaanta average-ku halka wax uu naga tusayaa waxaynu doonaynaa markaa waxbarashadeenu qaran ahaan inay noqoto mid xaqiiqo ku salaysan oo qofka ardayga Allahumma salli ala Muhammad mustaqbalka awoodiisa fikir ahaaneed shaqo gudanahaashaaneed iyo muwaadinimo ka muuqata laakiin arday Allahumma salli ala Muhammad hab iyadoo Allah bad laga tagay tayadii waxbarashada kaga soo gudbay inaynu taa Allahumma salli ala Muhammad qaran ahaan aynu ka wada shaqeyno haddii ay tahay dugsiyada gaarka loo leeyahay kuwa dawladda iyo wasaaradda waxbarashada laftigeega qaranka waxa uga siyaasada inay noqoto wasaaradda waxbarasho oo gudata waajibaadka maxay Allahumma salli ala Muhammad xeer ku dhigayo iyo siyaasadda qaranka ee waxbarashada aad baan maxay u mahadsantiin waan idinku hambalyeynaya waqtiga tababarka qaadateen tababarkaasina Allahumma salli ala mihnadiina macallinimo kor buu qaadaya ardaygaad wax u dhigaysaana faa'iido u keenayaan dugsigaad ka tarsantiin qayb uu ka qaadanaya horumarkiisa si guudna qaranka waayo qof amba maxay 100 qof amba 5 qof wax bara qaranka qayb uu ka qaatay maxay ahayd horumarkiisa aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh